dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda beeraha iyo waraabka qaramada midoobay ee FAO iyo hay'adda horumarinta Mareykanka ee USAID ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday la dagaalanka ayaxa iyo cayayaanka waxaana dowladda federaalk ee Soomaaliya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho ay maanta kula wareegtay laba diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca ee helikobteriska kadib markii deegaano ka mid ah dhulka Soomaaliya uu ku habsaday ayax la sheegay in uu ka yimi gacanka cadmeed una soo gudbay deegaanada waqooyi bari iyo bartamaha Soomaaliya kuna habsaday dhul daaqsimeed labadan diyaaradood ee Soomaaliya loo soo diray ayaa waxa ay ka qayb qaadan doonaan la dagaalanka ayaxa iyo cayayaanka waxaana shaqadooda ugu horeysay ka bilaaban doonaan deegaanada Galmudug, Puntland iyo Somaliland iyagoo markaasi dusha sare ka buufin doono cayayaanka iyo ayaxa sida ay sheegtay dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana shaqadooda ay si rasmi ah u bilaabi doonaan diyaaradahan oo ay buufinta bilaabi doonaan maalinta Biritaa waxay noo soo baxday in laga maarmaan tahay in la helo diyaarado maadaama uu ku filnaa waayeen baagiskii dadka isticmaalayeen haamihii dhabarka la suranayay iyo motooradii gawaarida lagu xiranayay marka labadaas yani hadda ground dhulka ka socdo waxa laga maarmaan noqotay in diyaarado loo helo marka anaga oo la kaashanayna hay'adda FAO ay kaalmeynayso fankana bixinaysa hay'adda USAID يعني waxaan soo helay ilaa 3 diyaaradood loogu talagalay 3 deegaan Puntland iyo Somaliland iyo Galmudug marka waxaan soo gaaray hadda labadii Puntland iyo Galmudug loogu talagalay inta Somaliland kulli isbuuc dambe imaanaysa wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa shaaca ka qaaday in sunta lagula dagaalamayo ayaxa iyo cayayaanka aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin nolosha dadka deegaanka iyo dunyada horumarkan hadda maanta la sameeyay oo in diyaaradaha markii ugu horeysay Soomaaliya 30 sano muddo ka badan diyaarado in lagu buufiyo ayax waa runtii dadaal waxay ku timid wadajiro dawladdu ay ka shaqeysay waxaan aad iyo aad ugu macalinaynaa madaxda sare dawladda madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo runtii ilaa markii uu bilowday musiibada ayaxu dadaal gaar ah iyo ahmiyad gaar ah siinayay sidii looga hortagi lahaa waxaan kaloo u macalinaynaa hay'adda FAO oo khibrad badan oo xagga technicalka ka geysatay la dagaalanka ayaxa waxaan si gaar ah ugu macalinaa hay'adda USAID oo iyadu fanka diyaaradahan bixisay gudoomiyaha guddiga beeraha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi iyo wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa soo dhaweeyay tallaabada dawladdu ay u qaaday la dagaalanka ayaxa oo dhibaatooyin ba'an ku haya deegaanka dhul daaqsimeedka Soomaaliya marka aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadinaynaa safarkii dheeraayo aan wada tagnay wasaaradda beeraha iyo guddiga beeruhu waagi dhaweyd waa ka soo buufinay goboladaas dalka afar bilood ka hor bay ahayd baan u maleynayaa wasiir waa lagu guuleystay in diyaaradahan la keeno run ahaantii daawada lagu buufinayo waa weydiiyey ninkan muxuu ahaa odaga ah oo diyaaradaha wata sida wasiirku u sheegayay daawo aan dhibaato lahayn weeye kaliya ayaxay dilaysaa runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay juhdiga weyn iyo dadaalka wasaaradda beeraha iyo madaxda sare ee dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka geysteen in maanta ay suura gasho laba diyaaradood oo adduunka meesha ugu dambeysay laga keenay oo maanta maxaa la yiraahdaa ku tala gashay in ay Soomaaliya oo dhan meel alla meeshii ay dhibaato ka jirto dhinaca ayaxa ay ka buufiyaan iyo cayayaanka kale intaba marka runtii aad ayaan ugu bogaadinayaa ugu mahadcelinayaa Abdicasiis Ibraahin Axmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho